أنا قصل. soo dhawaada saaxiibayaal. Qadka dhinaca Soomaaliya xilligan oo xilli dambe ay runtii ay tahay waxa iga soo wacay oo dadka Soomaaliyeed dartood ma aragtay xilligan aan u soo galnay waxay tahay waxaad arki kartaan maxamed cabdiraxmaan lamaanihii qarniga. maxamed cabdiraxmaan runtii xilligan Soomaaliya ayuu si toosa uga jiraa. waxa uu ugu jirana wax kale ma aha, waxay tahay in dadka Soomaaliyeed uu maaragtay la wadaago sida hadda xaalkiisa ay tahay. waxaa soo wajahday qoyskan sidaan hore uga hadalnay xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. run ahaantiina waxay u baahan yihiin dabcan in dabcan la la caawiyo oo maaragtay la garab istaago. maxamed cabdiraxmaan oo hadda ah ninkan dhalinyarada ah aad arki kartaan runtii hadda Soomaaliya ayuu ku sugan yahay. xaaladaha ugu dambeeyay ee haystay xilligaanna waxay tahay ayaan idinkaga warami doonaa. soo gala si aan dabcan uu fariin guud oo uu rabo inuu idinkala hadlo aan usoo gudbino si uu halkaasi ma aragtay aragtidiisa iyo waxa hadda Soomaalida uu uga baahan yahayba runtii uu ka hadlo maxamed cabdiraxmaan. marka soo gala. xilligan xilli dambe waaye, maynan jeclaysan xitaa inaan xilligan soo galno, laakiin xaaladda jirta iyo xilligan sida ay isagu muhiim ugu tahay ayaa run ahaantii aan waqtigan usoo galnay qoyskan si aan hadda maaragtay fariin guud oo dadka Soomaaliyeed uu usoo diro run ahaantii. marka soo dhawaada. Zikri Maxamuud Timcade ayaa ila daadiinaya barnaamijkan oo hadda si toos ah ugula jira. Zikriye soo dhawow. maxamed cabdiraxmaan lamaanihii qarniga ayaa hadda qadka noogu jira. fariinta dadka ula wadaagayo isaga iyo qoyskiisa ayaa ah fariin u baahan in dadka Soomaaliyeed ay maqlaan. marka Zikriye soo dhawow. Masro ma santahay adiga iyo saaxiibkeen waqtigan xaalad adag ku jira u baahan in dadkeena loo dhaxgalo caawinaad wanaagsan ay sameeyaan. inkastoo dadka reer Muqdisho waqtigan ay jiifaan, haddana waxaa jiro dad badan hadda dadku qaarkood way ilbaxeen oo xilligaaba waxaa arkaa dad waqtiyo soo qoraan. marka waxaan rajeynayaa in saaxiibo badan nagala qayb qaataan caawinta walaalkeena u baahan waqtigan adag in garab la siiyo. marka inkastoo dadka qurbaha waqtigan inta badan fiid hore u tahay, haddana waxaan rajeynaynaa tiimka Soomaaliya iyo Afrikaba jooga qaarkood in muuqaalkan inta daawanayso haddii ay haddu dadkana la wadaagaan caawin karaan inay dadka la wadaagaan, sheergareeyaan. haddii ay jirto dad hurdayane muuqaalkan kadib wantii aan ka baxnay subaxdii wixii ka dambe inay arki doonaan, iyaguna ay ka qayb qaadan doonaan caawinaadda walaalkeen ilaahi inta dhimanna ha u dhamaystire.
qadka sida hadda hore u sheegnaba Zakariye waan kula jiraa si hadda dabcan aan soo wada gelino ayaa noo suuragalay maxamed soo dhawow maxay tahay fariintaada si hordhac ah dadka Soomaaliyeedna intay ka soo galayaan dabcan waan ku dadaali doonaa inaan xaalka hadba si aan u sii dhanaan dhirino fariintaada marka bal nala wadaag iyo waxa dadka Soomaaliyeed aad doonayso inaad kala hadasho si wanaagsan waa gart maya waa saxan tahay maxamed aad u mahadsan tahay Zakariye hay dadka dabcan asaagan muuqaal soo caawin karo saaxiibkan maxamed dadku waxa ka maqan warka aragtida ah ninkan maxamed waqtigan waxa uu baahan yahay iyo hadalkiisu dabcan dadka qaar iyagoo aan fariintiisi aqrinin ay ka bixinayaan aragtiyo khaldan ninkan wuxuu idin dhahay ani nin dhalinyaro ahay waa shaqaysan jiray dhibaata ay gaarto idin dhahay laakiin waxaan u baahanahay hadda maadaama hadda aan xor ahayn familykayga qaarna ay dhibaato gaartay anigana dhibaata igu dhacday keliya waxa uu dhahay weli xoogaa leeyahay wixii uu ku shaqaysan jiray cilmigiisa uu leeyahay uu shaqaysan karaa waa sax waa nin dhalinyaro ah laakiin wuxuu u baahan yahay waa xorriyad maadaama uusan xorriyad badan haysanin dadku wuxuu weydiisanaya waa caawinaad in dadku ay iscaawiyaan dabcan maxamed waa nin dhalinyaro ah waa sidaa ujeedaan waa nin noloshu u bilaaw u tahay waxaan filaa inkastoo sheekooyinka qaar aan la tabinino dad badan arrintan oo kale inay ku dhacday marka ninkan hadda wuxuu idiin weydiinaya waxa waaye inaad caawitaan qofba siduu u caawin karo laakiin ma ahan inuu waqti kasta caawinaad idinka baahan yahay maaha hadda soomaaliya haddii ay jir lahayd nidaamyo kale oo ninkan lagu caawin karo marka dakhliga laga tago laakiin hadda wuxuu u baahan yahay waxa waaye inaan caawinno
inaan garab istaagno inaan wax alla wax aan samayn karno aan u sameyno aragtida marka aan video callkan usoo galnay caawa livekan usoo galnay muxuu yahay livekan waxaan usoo galnay saaxiibkeen maxamed hamar waxaa jeclaan lahaa inaad u sheegtid war wixii hore dhacay miya mise wax hadda kugu cusub videogan ama livekan waxaan usoo galnay bal hal mar u sharax maxamed caawa maxaa kugu cusub noloshaada maxamed caawo iyo waxa kugu cusub wixii hore marka laga yimaado dhacay caawo waxa kugu cusub noloshiin la soo dirsay ee aad rabto dadka Soomaaliyeed inay ka caawiyaan maxay tahay maxay tahay inuu go'aayo wad maxamed maxamed noogu jir dadkan la hadlayna noogu jir zikri sida aad maqlayso maxamed dhibaatada ugu weyn meesha hadda soo wajahday wax kale ma ahan hooyga ay degeemaysanayeen waxaa markii hore mas'uuliyad qaaday injineer cabdiraxmaan yirisow injineerkiina waa taa aragtay oo dhintay allah u naxariisto hadda marka hooyga ay ku nool yihiin lamaanahan wixii dhacay wax dhacay waaye waa wax hadda dabcan laga soo gudbay dhibkii iyo wixii lamaanihiina ay wada joogaan wixii la xali karana in la xaliyo la isku dayayo ilaa hadda laakiin maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo walaalaheen ah oo meel ku jira oo u baahan gurmad iyo garab istaag joogto ah dadka ay sugayaan iyo cidda ay weheshanayaan ay tahay Soomaali aan ka hadlaynaa dadka marka waxaan ka codsan lahayn inay muuqaalkan dadka la sii wadaagaan qofkii kun shilin ba ha ahaatee ku darsan karan inuu ku darsado si walaalkiis maxamed uga caawiyo waa sax wax fiican waaye waxaan sameynayno dadku weli waxay fahmi la yihiin in ninkan hadda xaalku uu yahay sidii hore dabcan sidii hore ma ahan waa sidaa sheegtay horey noloshiisa waxaa u ballan qaaday gudoomiyihii gobolka allah u naxariistay injineer yiriso meelo ka mid ah hoyga ama hoteelada muqdisho ku yaala hadda noloshiisu maanta qaarkood waxay wararka qaar ku dhacay waxay in noloshii laga jartay cunadii oo kale maalmihii dambena xaaladiisa ay adkeed hadda marka maanta caawa wax soo dhaca waxa waa in laga saari doono goobta uu deganaa cuntadana laga jartay hoygana laga saari doono dabcan waa dareemi karaa marka qofka markii uu family yahay oo xaas yahay labadooda markay yihiin kasii culusaa maanta ilmo yaraa meesha joogo qaladkana waa u dhacay hore way u dhaceen labadooda qaladka hore u sameeyeen wax walbana waa qoraal oo qadarta alle sidai u qorantay u dhacaya mar walba laakiin wixii way dhaceen kadib waxay u baahan tahay xallin inkastoo xallintu ay arrimo family ay tahay haddana annaga hadda waxaan raadinayna waxa waaye ninka in la caawiyo maadaama goobta uu deganaa laga saari doono maalinta beri ah raashinkii laga jartay in caayilo ilmo wato oo xaasna uu yahay keliya aniga waxaan samayn karnaa dadkeena inaan garab istaagno war Soomaalida waxaan ka rabnaa dadka Soomaaliyeed arrinta dhibta dhacay iyo halkeeda had joogto maanta waxay taagan tahay wiilkaas iyo gabadhaas iyo ilmahooda yar in fariinta ay idinla wadaagayaan lagu caawiyo oo ah in loo gurmado muxuu ahaan maaragtay dhexdan loo xirto sakri iyo inta meesha ku jirto horta waa mahadsantihiin maadaama qofkan uusan haysanin xuriyad maadaama uusan mataqaanaa oo galgal kale oo nafsadiisa ku badbaadiyo uusan samaysan karin Soomaaliya waxaa joogta dad fara badan oo hay'adaha mataqaanaa samafalka la shaqeyso tusaale haddaad adigu caawi karin waxaad garanaysaa inta daawanayso haddaad adigu aadan mataqaanaa aadan caawi karin waxaad garan kartaa waddo kale oo ninkan ku badbaadi karo waddo kale ay ku badbaadi karaan mataqaanaa lamaanayaashan waddo kale waxaad garan kartaa ay nolol loogu sameyn karo ubadkan yar ay dhaleen wixii dhinta waa dhinteen wixii dhaca waa dhaceen marka walaal haddaad adiga caawi karinin waa dadkana daawanayo waxaad taqaanaa walaal ama saaxiib ama ehel kale oo hay'adaha la shaqeeyo ninkan
haddii uu helo meel amniya tusaale sida Kenya ama Uganda oo kale meelaha safaaradaha ay ka dhow yihiin haddii la keeno ama uu yimaado dhul oo xorriyad ku yahay wuu shaqaysan karaa waxaan hadda ka hadlayna muxuu cunaa maahan sidee dadkan xorriyad ku heli lahaayeen haddii uu dhintay allah u naxariistee qofkii meeshaan ku mataqaanaa ku biili jiray caawi jiray hoteelkii haddii hadda waxa laga hadlayo sakriye manusarna waa idiin sheegaan umaleynaa waxa hadda laga hadlaya waxay tahay meeshay deganaayeen ayaa la yidhi mataqaanaa cuntadii laga jaray cuntadii haddii laga jaro waxaa ku xigaysa iga guura hadduu guuro meeluu aado ma garanayo marka walaalayaal aan isku dayno inaan caawinno walaalkeen iyo walaasheen iyo cunugii iska saqiirka ay dhaleen waxaan ku caawin karnaa haddii aad dhaqaale haysanin inaad la raadisid mataqaanaa waddo kale uu mataqaanaa uu ku bixi karo sakiri waa kusii hadalka adiga walaad waa mahadsan tahay runtii dadkeena qaarkood waxay leeyihiin naagta muu furo qaarkood waxay leeyihiin naagta muu sidaan yeelo qaarkood waxay leeyihiin laantu waa laandheero maxamed iyo gabadhan waa laba qof oo nolosha wadaagay haddana waxaa imaaday ilmo dabcan guurka marka horeba si qalad ha ku bilowday hadda alxamdulilah waa dad reer oo ilmo haysto waxaan u baahanahay keliya saaxiibkeen in lala xiriiro la caawiyo shacabku keliyana ma ahna inta waddanka wuxuu leeyahay nidaam dawli ah ka jirto xitaa dowladda soomaaliya oo kale waa jeclaan lahayn sida injineerka oo kale allah u naxariistay sida u damaanad qaaday noloshooda in uu u damaanad dad kale u damaanad qaadi kara in la heli karo siyaasiyiin badanaa waddanka ka jirto nidaam dawli ah ka jiro madaxuu waddanka leeyahay nidaam dawli ah ka jiro dabcan way ficnaan lahayd marka in ninkan la caawiyo nidaamka dawliga weliba lagu caawiyo shacabku waa sidaa sheegteen shacabka qaar iyaga naftirkooda caawinaan u baahan laakiin tan waa arrin u baahan in loo wada gurmado waddankana dawladuu leeyahay horey waxaa sidaan oo kale u hayay guddoomiyaha gobolka allah u naxariistay engineer yariso dabcan booskiisa hadda nin kala fadhiyo cumar finish way ficnaan lahayd xataa inuun isaga sii garab qabto qof walba oo booskaas yariso gala xataa waa inuu shaqada uu qaban karaa uu injineerka hayo nidaam dawli kalaa ka jiro hay-ado badanaa jiro wasaarado badanaa jiraan way ficnaan lahayd marka ninkan shacabka bis aan waxba ugu raadinin xataa ee dadku dawladda ku jiro kale hay-adaha dawladda kala gedisan oo kale inay arrintan soo farageliyaan ugu yaraan xataa ninkan nolol loo sameeyo haddii xataa xal kaloo xorriyad la siin waayo xataa in nidaam kale loo sameeyo meel nafsadiisa ay ugu ammaan gasho in shaqo loo abuuro xitaa ama in lasoo gebagabeeyo khilaafka hadda way jirtay maalin dhexdaas maxkamadda gobolka banaadir ah xukuntay dad ka mid ah dadkii dilka ka dambeeyey way ficnaan lahayd marka in xal xataa si hoose loo gaaro oo xataa dadka qaar waxay leeyihiin gabadha ha furo mar hadduu meesha ilmo imaadeen waxaan u malaynaya inuusan xal noqon karin furiinka laakiin labadiba hadday diyaar yihiin inay noolaadaan ilmahooda sii dhalaan kuba kale xataa xalka si hoose loo xaliyo nidaam dawli lasoo dhexgalo nidaam waxaa jiro qabaa'ilo oo kalaa jiraan in nidaam qabaa'ilo xataa lagu dhameeyo si ninkan xorriyad ugu helo oo u shaqaysto xataa haddii jir lahayd in ay adkaato oo kale in ninkan uu ku noolaado waddanka oo kale xataa in loo raadiyo fursado kale hay-ado caalami ah in dalka laga soo wado kale meelaha nabad oo kale la geeyo ugu yaraan afrika xataa dhexdeeda wadamada qaar haddii la heli kara xataa hay-adaha arrimaha gargaarka oo kale in ninkan lasoo bixiyo way ficnaan lahayd marka shacabkeenu mararka qaar waa dad iyagu isku xiran oo fiican oo iscaawiyo mararka qaarna waa dad isdhaliilo inta badan aada isku dhaliilay aflagaadeeyo marka way ficnaan lahayd inaan nidaamku qabiil uusan ahaanin ay ahaado bilaadamnimo muslimnimo soomaalinimo in loo caawiyo ninkan dhalinyarada oo nin aada u fiican oo nin qalbi fiicana wuxuu sameeye guur waaye guurkana ma aha wax qalada gabadha haddii labadooda ay isfahmeen arrinta dilkan ay ahayd wax dhacay oo qornaa waa in hadda marka xal la gaaraa ama dawli ahaato ama qabiil ahaato munasraye sakriye waa mahadsan tahay horta midda haddii ay soomaalidu ogaadaan waxay tahay waxaan aaminsannahay jaceylkan lamaanayaashan hadday guulaysto waxaan aaminsannahay lamaano kale ama nolol kale ayaa badbaadi karaysa haddii laakiin dadkan noloshoodu aysan badbaadin waxay noqonaysaa caqabad soo laabato waxay noqonaysaa dhibaato mataqaanaa ku soo laaban karta ama dhibaato hor istaagsanaa karta
inay lamaano kale oo sida noloshooda camal ay dhismato markii dadka Soomaaliyeed ama shacabka laga tago waxaa dhegaysanaya ama videogan uu gaari karaa siyaasiyiin fara badan oo qaarkood laga yaabo inay mustaqbal siyaasadeed waddanka ka leeyihiin maadaama sanad kadib ay doorasho dalka Soomaaliya ay ka dhici doonto waxaa jirta xisbiya waddanka ka jira siyaasiyiinaa jirta xildhibaano waxaa jira inay soo laabtaan raba 2021 gudoomiye maxaad ka codsanaysaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dadka waxgaradka ee mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya haminaya waa maasantahay sakriye muhiimadu waa sida adeeg sheegtay wuxuu kaliya u baahan yahay ninka waa nin 20 jira waa nin xooggiisa maali jiray maskaxdiisa maali jiray markuu guursanayana gabadhan wuxuu ogaay inuu mataqaanaa biili karo masruufo karo jaceylkiisa uu xamaalan karo jaceylkiisa wax u qabsan karo laakiin waxaas ka imaatay qadar rabbi iyo wax ayaan ku xisaabtamayn labadooda ayaa imaatay marka muhiimadu waxay tahay sidii loo badbaadi lahaa walaalahan Soomaaliyeed sidii loo badbaadi lahaa jaceylka Soomaaliyeed sidii ubaxaas yar ay dhaleen oo biri canugaas yar hadduu weynaado waxa uu kaliya u leeyahay waxay tahay hooyada iyo aabahay jaceylkooda waxaa badbaadisay qof hebel iyo walaal hebel ama Soomaali ayuu leeyahay hadhowda cunugaas wuxuu noqon doonaa canug Soomaaliyeed oo Soomaaliya wax tari kara Soomaaliya waxaan dhihi lahaa canugaas yariiska cuqdad ha ku beerinina Soomaaliya waxaan dhihi lahaa jaceylka ama nolosha Soomaalida ama nolosha bini'aadanka caqabad ha ku noqonina maanta haddaad labadan ruux caqabad ku noqotaan waxay noqonaysaa caqabad weligeed taagan oo ma ku dhiiri karayso inay dad isguursadaan waxaa jirta hay'ado fara badan iyo injooyo xataa ka shaqeeya nidaamka qabiiliga sida Soomaaliya looga saari lahaa ani waxaan aaminsanahay haddii jaceylkan uu guuleysto nidaamka qabiilka ama 4.5 la yiraahdo iyo wixii la mid ah daaqada ayay ka baxayaan marka waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan waxaan ku rajaynaynaa in ilaahay uu inta yar uu ku dhiman ku fududeeyo adduunka waa iska ciqaab qof aan soo marin ma jirto dhibaato nolol markaas sameysad wuxuu waa la kulmaysaa haddii aan nahay bahda saxaafadda Soomaaliyeed waxaan kula garab taaganahan si codkaaga loo gaarsiin lahaa qof kasta laakiin ilaahay tala saaro wax walba ku soo gaaray waa wax kuu qornaa waana tusaale kuugu filan oo aad biri ku guuleysan karto sikri baaqaaga ugu dambeeya colaada mahadsan tahay dadka qaar aragtida baxsanaya ku mashquulsanaa akhrinay qaarkood meesha ficnina hadallada qaar ay ku hadlayeen kuwa kalena way fiican yihiin bilaadanka marka waxay isku jiraan marka aragti la keeno qof xun iyo qof fiican labadaba ay ka hadlaan waa run ninkan saaxiibkeen dhibaatada ay ku dhacday aniga waxaan ku hadlaa waxa weeyaan ninkan uu yaraan xataa in la xalliyo xataa yaa waxba loo qabanaya nidaam dawli in wax lagu xalliyo si ninkan fursad kale u shaqaysan karo uu heli karo magaaladiisa si xorriya ugu noolaan karo mararka qaar waxaa jira dad laga dhuuman karo markaa muqdisho joogtay dad laga dhuuman karo laakiin u malayn fikradda qabiil dadka markii qofka uu yaraan loo raadsan karo in la yareyn karo ama qofkaas uu yaraan u dhuuman karo laakiin marka nidaam kale aad ka dhuumanaysid ama dad kale aad ka dhuumanaysid ilaa uu yaraan sixada adoo xataa lagu yaqaano xafiiskaaga meel uu ku yaraa meesha aad ka shaqaysid magaalada waa ku duugi kartaa ka duumasha laakiin markii qabaa'il uu ku raadsanayo runtii way adag tahay sababtoo 17 degmo qabiil kasta degaya marka lagama dhuuman karo malaynaa qabiil adiga isku wada raadsanaya marka laakiin walaalkeena sikriyo dadka qaar oo soo qoraya hadallada qaldan oo qabiilka war anaka waddankan aan ku noolnahay waxaa jirto gabdho Soomaaliyeed oo ay qabaan ajnabi kuwa waxaa qabo Algerian iyo waliba
tanzanian ana hadda way jiraan dad xaafadii la degan way jiraan mar raba inaan magacooda sheego laakiin habeen hore way aniga jiraan baska gabdho habeen hore soomaaliya oo baska isla soo xataa raacnay ani gabar Soomaaliyeed oo weligaan aqoon habeen hore isla soo qaadnay caadi aan u salaamay waan salaamay waxa lagu yiri waa dumashiga sababta ku noqdo Soomaali ahaan leh gabadh islama dhalan isma naqaani magaca Soomaaliyeed oo lagu baray waa bartay nolosheedii caadi wataa way ku faraxsan tahay marka walaalkaas Soomaaliyeed si adi sidee ku diiday waxa ka sii daran dad Soomaaliyeed oo qaarkood commentiga hadda waxay rabaan ku soo qoraya marka lambarka hoos in kugu soo qoran waa lambarka aad ku caawi kartaan walaalkeen qof kasta waxa haysato talo iyo tusaale ay ku caawi karto marka jacaylka lagu sheegayo Sakriyo dadkan ma garanayaan laakiin marka ay yimaadaan meel iyagu aysan lahayn marka ay yimaadaan ayay garan karaan nolosha iyo isdhaxgalka bulshada faa'iidada u leedahay dadka qaar waxay leeyihiin xal waxaa noqon kara gabadha in la furo yaa og damaanada haddii gabadha ninkan uu furay in noloshiisa damaanad la siin karo cid og ma laha haddii labadooda ay ku qanacsan yihiin isla wada noolaadaanna way kasii fiican tahay aniga Soomaaliya dowladda oo kale waxaan ugu baaqi lahaa in arrintan uu yaraan wiilkan nolol u abuurto ee shaqo siiso ee arrintiisa xal samayso muuqaalkan waxaa filaha hadda dad xafiisyada dowladda ka shaqeeya hadda inay daawanayaan aniga baan u jeedo waa jeclaan lahaa marka in iyaga naftirkooda arrintan ay gaarsiiyaan madaxda sare kadibna ay wax ka qabtaan muuqaalka waa u jeedaa laba qof ka tirsan xafiiska madaxweynaha hadda soo galaysay way ficnaan lahayd iyagu sida muuqaalkay u daawanayaan in wax ugu qabtaan madaxda u gaarsiiyaan u yaraan ninkan loo sameeyo shaqo la xalliyo noloshiisana ay xorriyad noqoto u yaraanna xataa khilaafka meesha uu kasoo bilowday haddaana la xallin ninkan ma noolaan karo ama ku noolaan karo muqdisho waa in marka u yaraan lasoo xalliyaa khilaafka meesha uu kasoo bilowday haddii ay noqoto familka hoose in lasoo xalliyo labada family hadda ayaan hore maxkamadda gobolka banaadir qaarkood dil togasha lagu xukumay haddii xataa la xalliyo iyada xataa la dhaho dadkaasi in si qabaa'il hoose loo xalliyo si reerkan xorriyad u helaan way ficnaan lahayd aniga zikri ahaan waa ka qayb qaadana caawinaadda saaxiibkeen waqtiga adag ku jiro waa ballan qaadaa weliba in bil kasta ma cayima laakiin